magaalada Nairobi xalay waxaa ka dhacday munaasabad si aad ah loo soo agaasimay taasi oo lagu soo bandhigayay wax soo saar cusub. Iqra Lucky Cosmetics and Shopping iyo kambaniga Africa Thai Beauty Care Limited waxay soo bandhigeen wax soo saarkooda cusub oo ay bulshada u riyaaqeen. Iqra Lucky oo ah gabar design garaysa dharka dumarka noocyadooda kala duwan ayaa munaasabadaasi ku soo bandhigtay wax soo saarkeeda dharka dumarka iyo qurxinta dumarka dhanka kareemada. sidoo kale shirkadda Africa Thai Beauty Care Limited ayaa soo bandhigtay kareemo dabiici ah oo aan kiimika lahayn kuwaasi oo dadka ka caawiya in nabruhu ay ka baaba'aan in looga maarmo kareemada la isku dardaro ee la isku cadeeyo iyo waliba coffee la isku caateeyo. dhammaan alaabaha ay soo bandhigtay shirkadda Africa Thai Beauty Care ayaa ah kuwa sharciyeysan kuwaasi oo aan wax dhibaato ah kaaga imaaneynin. ugu horeyn munaasabadaasi waxaa ka hadlay Cabdiraxmaan Axmed oo u hadlayay shirkadda Africa Thai Beauty Care isagoona ka warbixiyay munaasabada ay ku soo bandhigayeen wax soo saarkooda iyo waxyaabaha ay shirkadaasi soo saarto. qofka nabraha ugu badan qabo waxa oo sensitive face kale waxa uu balan qaadanaa within 3 days ayada iyo saabuuntan markuu isticmaalo inuu within 3 days result ku helo. Mega Lotion waa product khas looga maarmi doono. brand inaga iskale company ahaan oo qaas ah kamid maaha productyada uu soo saaro Precious Skin Thailand laakiin waa product Thailand ayada lagu sameeyo oo dad badan ay qas looga maarmi doonaan. waxaan maleynayaa dad badan garanayo cream tablet leeyahay cream kan iyo tablet ka qofku isku isticmaalo whitening ku siinaya within 5 days. wayga wakana waxa ku jirta 10 pieces kaas within 1 week result ku dareemaysa markaad isticmaasho tastigiisana aad ugu fiican yahay you like it markaad isticmaasho ku fiican. Iqra Lucky ayaa iyaduna dhankeeda ka hadashay dukaankeeda Iqra Lucky Cosmetics and Shopping iyo waliba bandhigii cajiibka ah ee caawa ay ku sameeyeen Nairobi iyadoo soo bandhigtay labiska dumarka. Iqra Lucky ayaa iyaduna ka hadashay bandhigeeda cajiibka ah ee caawa ay ku soo bandhigaysay wax soo saarkeeda iyadoona faahfaahin ka bixisay sida ay bulshada ku heli karaan waxyaabaha ay soo saarto. أما حاول ما تعلنا يا أصحابتي كسوق بشي حرف دينا بروح بدنا نفاشي وشو لكن سكر هانا حاول ما تعلنا فنانتي قبل كتبنا ولا ليه راح يدولك الصومالي شنو كان فيه كتير كان كده على خلاكي أو أصحابتي السنين قرب الصعب بركع بدنا كل من هذا اللي والله هلاي إنه حنقول له قرب الصعب يكس وحن مرة يكس وحن waxaan ku faraxsanahay walaashii maanta inaan kusoo gashay haddana inaan joogo meeshii aan gaartay ku qabsatay inaan kusoo gaaray alxamdulilah. waxaan leeyahay heedan la raajiyo horumarkaan aniga kaliya ma keenin walaashay walaalaheed walaalayaasheen garab taaganaa jiro oo hadda garabkeeda ka maqan iyo kuwa garabkeeda taagan dhammaantood waxay ku leeyihiin. ugu dambeyntii munaasabada waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dawlad goboleedyada dalka iyo waliba sidoo kale fanaaniin caan ka ah geyga Soomaaliyeed kuwaasi oo qayb ka ahaa madadaalinta barnaamijka halkaasi lagu soo bandhigayay. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. haddaba ka isticmaal teleefankaaga adeegyada IBS Bank